cunug yariis ah oo xalay la dhalay ayaa saakay waxa lagu riday godkan aad u jeedaan ama suuligan aad u jeedaan musqushan waxa uu ku jiray saacado badan ilaahayna waxa uu qadaray in uu sadhiman laakiin kaalmo degdeg ah waxa uu kala kulmay ama gurma degdeg ah ay u fidiyeen hay'adaha amniga gaar ahaan booliiska degmada Gurceel oo xogtan la soo maryahan aad u jeedaan cunuga ayaa lagu duuduubay godka ayuu kula jiray waxan maxaa waay xafaayadu xirray عرق وحرد معناه واقرت وحنا دن عنق ku xiraay waxaana dhan hadda maryahan u jeedaa ilaa 3 maro waaye madaxay u duumeenba cunug yariis ah oo xalay la dhalay ayaa saakay waxa lagu riday godkan aad u jeedaan ama suuligan aad u jeedaan musqushan waxa uu ku jiray saacado badan ilaahayna waxa uu qadaray in uu sadhiman laakiin kaalmo degdeg ah waxa uu kala kulmay ama gurma degdeg ah ay u fidiyeen hay'adaha amniga gaar ahaan booliiska degmada Gurceel oo xogtan la soo gaarsiiyay kadibna goobta yimid booliiska qaybahooda kala duwan sida CID-da iyo sidoo kale booliiska ayaa halkan waxa ay ka sameeyeen baaritaano qaatay muddo waxayna ku guuleysteen markii dambe in ay ogaadaan in cunuga yarka ah suuligan oo ku jiro dabcan sida xogta aynu ku helnay qayb kamida gurigan ayaa hooyadii dhashay cunuga lagu xiray kadibna qof kale ayaa ka soo qaaday godkan ayuuna ku riday oo suuliga ayuu wuxuu ugu riday afka hore waa uu soo taraaraxay godka ayuuna ku dhacay laakiin hooyadii ayaa waxa ay u sheegtay gabar meesha maraysay inta daaqada iska furtay sidaasna waxa loogu wargeliyay hay'adaha amniga gaar ahaan booliiska isla markiiba goobta ay soo gaareen baaritaano ayay ku sameeyeen guriyaha iyo ka agdhow gurigan iyo sidoo kale meel kasta oo looga shaki karo laakiin baaritaanka kadib waxa ay CID-du ogaatay in meesha kaliya ee la geli karo oo yahay suuliga kadibna suuligan shubka ka samaysan ayaa la duleeliyay waxaana laga maqlay codkii cunugii oo ka dhex dhawaaqaya sidaas ayaana loogu guuleystay in laga soo bixiyo imika waxa uu yaalaa mid kamid ah isbitaalada degmada Gurceel gaar ahaan isbitaal xalane oo kamid ah isbitaalada ugu casrisan ee degmada oo waxaana geeyay booliiska si xaaladiisa caafimaad loogu sii dabiibo hooyadii dhashay cunuga sidoo kale waa la geeyay baaritaano dheeraad ah ayaa la sii sameyn doonaa oo cidda falkan sida rasmiga ah ay u sii lug gasho ay hay'adaha amniga gaar ahaan booliiska oo gacanta ku haya falkan CID-dana oo si gooniya gacanta ugu hayo baaritaano ay sii sameyn doonaan mid kamid ah sargaal ka tirsan CID-da degmada Gurceel ayaa goobta la gaaray dhibka uu ka dhacay waxa uu sharaxaad kooban naga siiyay qaabka ay wax u dhaceen waayahay maryahan aad u jeedaan cunuga ayaa lagu duuduubay godka ayuuna kula jiray waxan maxaa waay xafaayadu xirray xafaayadu xirray عرق وحرد معناه